dumarkan markay ninkooda intay wada joogaanna wada jooga marka ay ka tagaana waa tariq waa nariq waa bariq waa firiq waa dhifiq boqolka magac u soo sameeyay galmada iyo gogosha ku kooban horta waa caaye kabalayooyin laakiin waxaa jira qaar ka sii caaye iyaguna ka caaye kabalaysan oo iyaga caaya oo dhahda shalay waxaa dhageystay mid ku leh waxay tiri bariq buu ahaa mise barif ayuu ahaa ilmaha yaa ka dhalay saan ku qoslay moogta yaa kuuriyada ilmaha galma lagu yaa kuuriga galma fiican baa ilmaha lagu dhalaa meenay ogeyn gabadha in waalinta loogu shubo loo dhiibi karo waxaan ku xasuustay qiso halkan maalin dhaweed ka dhacday xafladan joogay oo qolo dhalinyaraha guri iibsatay qolo dhalinyaraha inta lacag isku dardarsadeen dadkan lacag weydiisteen guri iyagu ay leeyihiin iibsaday ay wada leeyihiin oo 12 dhalinyara ayaa xaflad dhigtay markiisa xafladii baan dadkii ka shaqeynay kamid ahaa markaas waxaan arkay gabadh wiilashii marba mid lala faqay midba mid lala kaxiyay bas ku naade waa maxay waxaan ka socdaa say gabadha saaxiibna ii sheegtay waxay tiri ayaa 2 daqiiqo ayaa dhawaan aan gabadha saaxiibna ay ii sheegtay waxay igu tiri gabadh ayaa maaragtay wax weey way xanuunsanaysaa nimanka aday galma samayso way ku xanuunsanaysaa waxay rabtaa shahway rabtaa ay ilmo u dhasho waxa looga qaadayaa nimankan niman seema lacag bay la siinayay way qof spender la raadinay ma gutay oo intuu koob ku shubo ama weel ku shubo de laboratory laga keeno daboolan la qaado oo gabadha gurigeedii ama halkay joogto loogu geeyo oo gabadhaas ay halkaas ay cunug ka dhali kartaa مثلا waxaan aad ugu qoslay gabadha Soomaaliyeed shalito ee caaye kabalada ahayd iyaduna caaye kabalada kala caayeysay ee lahayd ilmaha ayaa ka dhalay bacmiika lagu soo shubi karaa walaalo galmo ku mar xidhna caruurtu waxaad u baahan tahay gabadhu inay organism leedahay inay gabadhu iyadu hawadeedu kacdo deetana shahwada xubinta tarankeeda hadii la gaarsiiyo haduu active yahay spamku haduu active yahay oo nafaqa leeyahay oxygen leeyahay madaxiisii iyo dabaasha dibkii uu ku dabaalanay wixii oo dhan isagu leeyahay hadaad surwaalka saartid isaga tagi karaa dabaalan kara midda kale xubnahan reproduction ka gabadhuna way nuugaan iyaga caawiyo way nuugtaa marka way caawiyaan haway ku caawiyaan dabaasha marka galma fiican gabadh kootay caruur dhashay macnaheedu ma aha inay galma fiican heshay horta taa faham caayay kabalooyino midda kale de galmadu labada qof ay wada joogay ka dhaxaysa ama ha ku macaanaato ama ha ku samaato wixii aad doontaan ku kala tago qofka hadaa kala tagtaan de waayaha hawlaha kala ku faaf maxaad ka meeraysanaysaa gogoshaad ka soo kacday ya rag iyo dumarba miidan hawlihiina u qaybin karin hawlo kale miidan qabta lahayn oo hawlo kale ka dhicin waa maxay gogosh